بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال برنامج كني لما قاعد بحي حول معلومات كنبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم النبوي ما أنت النبي جه برنامج كذو نوعه هنجري ما حد يحدي يسدي جري محو نبي قبسن جري هولا محي أمديسو أي لشير جرين جرين اللي هو ذاك جرين هولا هاسي أيان دحبرتن كأوجرني فديغاني أما حلقة واتي لحد وبرنامج كاس أنا وجه ليني وحنكون جرني صباح ذا يهولها دعي جري النبي عليه الصلاة والسلام إنه صحابي سكور قادي جري وريسن جري إسلامركا ريوين هدي أركان هبينكي وحي كبريين إنه ريوين كاسي أفسير جري هل كاس أيان مرين كل ماذا سيدعي جري ما أهين كل ما أيهين كليئة شيكو islamarkaasi ku dhisan wacdi iyo mawcido bas ma ahayn bal xaaladaha ay ku sugan yihiin oo farxad leh oo qosol leh wala wadaagi jiray mararka qaar kood nabiga kaleey salaatu wasalaam uu la qosli jiray waxa dhici jirtay inay yiraahdaan fatabassama wa dawla cadeeyay waxa dhici jirtay inay yiraahdaan wuu qoslay hatta badat nawajidu ilaa ay goosaskiisa ama miciyaha aan aragno nabiga kaleey salaatu wasalaam sida uu qoslay ayaa dhici jirtay marka barnaamij wuxuu ahaa ama kulan maalinkaasi subaxda in uu ku dhisan yahay farxad iyo xaaladaha jira iyo waxyaalahaas oo dhan ayuu nabiga la wadaagi jiray saxaabadiisa subaxaasi markuu sida uga warqaado waxa dhici jirtay nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu goobtaasi uu ka istaago isla markaa uu aado guryaha xaasaskiisa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh isla markaa masjidka markuu ka baxana ducadii masjidka looga bixi jiray ayuu akhrin jiray bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma اغfir lii dunuubii allahuma اftax lii abwaaba fadlik aw waftax lii abwaaba fadlik bismillaah magaca ilaahay baan ku baxaya masaajidka uga baxaya salaad iyo nabadgelyaba nabiga calayhi salaatu wasalaam dushiisa ha ahaato ilaahayow dembigayga dhaaf ilaahayow irdaha fadligaaga ifur ilan waxa weeye waa subax weeye qofku waxa weeye adduunyadiiba u baxaya inuu faraj khayr qabo iyo abwaabada naxariista iyo fadliga iyo arsaaqda iyo barakaadka iyo nicmada inuu ilaahay u furo ayuu weydiisan jiray markuu guriyihiisa uu yimaado waxa ugu horeeya uu ku bilaabi jiray guriga wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh inuu cadaysto oo cadaygaasi afkiisa uu ku carfiyo almutayyab afkiisa mar walba iska tiibka iska carfoon inuu hadana cadaygaasi ku sii carfiyo uu salaami jiray qoyskiisa ehelkiisa isaga oranaya assalaamu calaykum nabadgelyo iyo salaam baa dushiina ahaatay kayfa antum ya ahla albayt sideeba tihiin seed ku bariiseen ahlu baytka guriga ehelkiisiyo wuxuu samayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam maalinkiisaasi hal guri kaliya ma tegi jirine gurihiisoo dhan sagaalka guri oo dhan uu mari jiray guri kastana waa gali jiray isla markaa waa salaami jiray uu bariidin jiray uu warsan jiray uuna u ducayn jiray kumana daahi jirin la joogitaanka uu la joogo salaan iyo isbariidin iyo ka warqab bay ahaan jirtay salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxa dhici jirtay mararka qaarkood in uu midood u soo galo sida Juwayriya bint al-Harith oo kaleba uu ugu soo galay ummul radiyallahu anha iyadoo meeshay ku tukatay fadhida isla markaasi wardinaysa oo istighfaartii wada ka baxay nabiga sallallahu alayhi wasallam magaaladiisu iska aaday uu ku soo laabtay mase halkeedii bay Juwayriya fadhida iyadoo tasbiixidii iyo dhikrigii iyo wada markaas uu ku yiri wali ma kabtaadii halkaagii waad fadhida Juwayriyo laqad qulti ba'daki 4 kalimaat gadaasha 4 kalmadood baan ku qowlay oo iri waxay u dhigantaa ay ka badan tahay maanta dhan waxaad akhrineysay maanta dhan waxaad ku daalayso akhrineysay 4 kalmadood oo aan gadaasha iri baa ka khayr badan oo ahayd subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ilaahi baa ceeb oo dhan ka hufan ma hado dhan isaga ku amaanan waxa weeye tirada khalqigiisa intuu abuuray in la eg inta uu naftiisa ay raali ka noqonayso in la eg wa zinata arshigiisa miisaankiisa in la eg ومداد كلماته كلمات كيسة وحاوي خد لغو قريو وحاوي إن كلمات كاسنا خد لغو قريو وتربي أوت المامي وحاوي واحدة ما انكرم معها كلمات كربي وحاوي ترسي لقاري كرم إذن إلهي سبحانه وتعالى أمان ينزهيد يمهذين أيو السوق دري نبي عليه الصلاة والسلام لكن ترى أن لسوكو بكرينو انت أو رياكو بكرة من أول إلى آخر أنت الدنيا ذي كقدوميسو إلهي أنتو خلقي وخلقي له وإنسان له وبني آدم له وجن له وملائكة له وأشجار له وجيدة له ودقاق له يعني الشمبرة له وحول بله
يعني وحكوبي كرو مجرو. ومن هنا مرة قاركود waxaa dhici jirta inuu weydiiyo hal cindakum shay war wax la cunaa ma haysaan guriga intuu soo galo haddii raashin ay u jirana way u soo dhaweyn jireen raashinka loo keeni jiray inta badan raashinka raashin fudud buu ahaan jiray timir iyo aqid oo caanaha la fadhiisiyay ama xaysada alxays oo ah waxa weeye timir iyo subag la isku shiiday oo ilaa hadda wadamada carabtu waa laga isticmaalaa xaysadaasi ama wuxuu ahaan jiray sharaab la cabo oo sida caanaha iyo nabiidka iyo ayuu ahaan jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirta inuu weydiiyo wax la cunaa ma haysaan ay yiraahdaan maya waxba ma hayno markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhihi jiray innii idan la saa'im hadduu arrinku sidaa yahay cunno aysan guriga oolin anigu waan soomanahay markaasuu soon iska niyeysan jiray waxa weye maalintiisaasna waa iska soomi jiray xaaladihiisu saasay ahaayeen intaasi marka walaalayaal waxay ahayd subaxdii qaybo ka mid a waxaan rabnaa inaan wax ka tilmaamno hadduu rabbi idmo golayaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu ma ahayn mid ummadiisa ka dhex baxsan ama meel gooniya ku urursan wuxuu lahaan jiray golayaal uu fadhiisto goluhu waa meel waxa weye naadi ama majlis ama fadhi lagu yaqaano qofka oo loogu yimaado waxa weeye ciddii wax rabta ciddii su-aal qabta ciddii dan iyo xaajo leh ciddii duruuf ay haysato waxaasoo dhan golayaashii marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan wax ka tilmaamayna nebigu markuu guryihiisa kusoo wareego oo uu soo salaamo qoysaskii wuxuu samayn jiray marar badan noloshiisa inuu masaajidka dib u soo galo ku soo laabto masaajidka markuu soo galana sida dhaqan u ahaan jirtay salawaatu rabbi wa salaamu calayh wuxuu samayn jiray tahiyatul masjid laba ragcadood oo masaajidka lagu salaamayo ayuu ilaahay dartii u tukan jiray masaajidka markuu ku tukanayana waxaa inta badan uu ku tukan jiray sida ay riwaayaadka qaarkood ay warinayaan saariyo tiir la yiraahdo saariyat almuhaajiriin tiirka muhaajiriinta tiir lagu magacaabi jiray oo masaajidkiisa ku dhex yaala ayuu ku tukan jiray waxayna ku taalay dhexbartanka rawdada الروضة الشريفة ماشى النبي أو كتل ما من بيرها جنة كمذا وي هالكاس دحبرتن كذا أي كتالي هالكاس مركز صلاة لبي يكسنجر وتيركس أسكو أدنجري وكتو كنجري بعدما أوتو كذا هالكيساس أيو فدي سنجري لنا عباري قرح كصباح مسجدك حق الروضة حكته وحنا اسكو تيرنجري وكدن جيك سنجري قريجي أما قولك عائشة رضي الله عنها وأرضاها saxaabadii sana halkaasi ayuu kula jiray kulankaasi wuxuu ahaa kulan inta badan noocyadaas subaxyadaas u dhaca kulan la yaqaano saxaabadu ay garanayaan oo midkoodii nabiga raadinaya masaajidkaas ka soo raadin jiray halkaas ka heli jiray kii maxalliga duruuf leh halkaas ka raadsan jiray kii su'aal iyo cilmi diineed iyo aqoon iyo waxa weeye qaba halkaas ugu tagi jiray saxaabadu waxa dhici jirtay mararka qaarkood inay bataan mararka qaarkoodna inay yaraadaan hadba duruuftooda iyo xaaladooda iyo firaaqadooda ay ku xirnaan jirtay haday yar yihiin xalqad bay gali jireen haday badan yihiin laba saf oo dhinaca midigta iyo bidixda ayay waa maxay saas u fadhiisan jireen si qofka cusub ama wafdiga ah ama magaalada ku cusub ama duruuf gooni ah wato ugu imaan kara nabiga sallallahu alayhi wasallam meel uu soo marana uu heli karo midigta iyo bidixda ay ka fadhiisan jireen nabiga alayhi salatu wasalaam kulamadaasi iyo golayaasha uu fadhiyo waa wacdin jiray aqoon iyo cilmi buu ku biirin jiray wuxuuna ahaa afsax alkhalq khalqiga midka ugu fasaaxada badan ugu aftahansan hadalkiisa hadal aad u macaan badan buu ahaa isla markaa ma ahayn hadal degdeg ah mana ahayn hadal waxa way tartiib oo lagu daalaya ma ahayn hadal dhexdhexaad oo fasl bayin lagu tilmaamay mid kala dhigdhigan oo cad oo xataa qofka wax tirinaya uu tirin kara hadalkiisa xabad xabad uu tirin kara Aisha radhiyallahu anha waxay tilmaamtay ma ahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam mid sardiya ka sardikum hadalka mid waxa way tirorokasiyo oo waxa way israaciye si darandooriya u rida sida adinka aad hadalka u dadajisaan muusan sameyn jirin laakiin hadalkiisa muxuu ahaa bayin fasl mid cad oo kala dhigdhigan oo qofka golaha ama fadhiga ka qayb qaatay uu xifdinayo salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa dhici jirtay sheekada uu la wadaagayo ama golihiisu inuu noqdo mid ku dhisan wada sheekaysi mid ku dhisan xiwaar ma ahayn hadal hal ruux dhinaciisa ka imaanaya oo inta kalena iska aamusan yihiin maanta oo dhan ay madaxa gundhinayaan maya hadalka uu la wadaagayo iyo xataa cilmiga iyo aqoonta uu beerinayo waxay ahaan jirtay mid xiwaar iyo ku dhisan nabiga calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu isaga su-aasha weydiiyo si hadalka uu xiwaar u noqdo su-aalihii weydiin jira waxaa ka mid ahaa alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir mararka ka mid ah buu su-aasha weydiiyey kabaa'irta midka ugu weyn dembiyada waaweyn kan ugu weyn miyaanan idiin sheegaynin وسؤال ودوني الدرين كوضا إنه كوكعيو إسلا مركا وقليو إني إيجو مبادرة
iyo su'aal weydiintu iyo danayntu dhankooda inay ka timaado markaasay waxay oran jireen bala yaa rasuul allah haa nacam inoo sheeg inooga waran kabaa'irta iyo dembiyada midka ugu waaweyn nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay su-aasha markii uu weydiiyey saxaabadiisa iyaguna ay dib uga codsadeen in cilmiga loo faa'iideeyo waa gaalnimada al-ishraaku billah ilaahu loo shariik yeelo waalidka oo lagu caasi garoobo cuquuqul waalideynka iyo markhaati been oo la furo shahaadatu zuurka ama meelaha maxaa la yidhaahdaa dembiyadu iyo gaalnimada iyo xumaatada lagu hayo oo laga qayb qaato oo la xaadiro intaas ayuu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam idan waxaan dareeminaa walaalayaal in uu ahaa maalinkiisu maalin ku dhisan waqti badan uu u helayo 9 qoys inuu soo maro uu waqti u helayo inuu masaajidka intuu ku soo laabto inuu cibaadeysto uu waqti u helayo golayaal uu fadhiisto oo saxaabadiisu ay ka soo raadiyaan oo cilmiga iyo aqoonta uu u beeriyo uu siiyo inuu waqtigiisa uu ahaa maalin aad u baraka badan ayuu ahaa maanta waxaan kusoo gabagabinaynaa intaas hadduu ilaahay idmo kulanka dambe iyo fadhiga toddobaad ayaan sii wadi doonaa golayaasha iyo waxa kasii dhici jiray iyo arrimo la xiriira hada wallahu aclam wasala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin inuusan carabkiisa ka daalinin oo waxay tilmaameen hal gole ama hal fadhi uu meel fadhiyo baa mararka qaarkood waxaa dhici jirtay inay tiriyaan 100 jeer isagoo odhanaya rabbi kfir lii watub calaya inaka anta atawaabu alghafuur rabbiyow ii dembi dhaaf igana towbad aqbal maxaa yeelay adiga waxaa tahay mid towbad aqbala ah dembiyadana dhaafa waa hal gole iyo hal fadhi 100 jeer inay ka tiriyaan afkiisa isagoo kalimaadka ay ka soo baxayaan ومن هنا isagoo dembigiisa